السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتي وعنا ونكسر داود جديد بيت ميل كستو شوكتين بولكن هلا برعوي بلاك أنا قد داون سوون فنسور ميديا فضلا هتات كل عصب تايتشر سبسكرايب صار كبلا كنا فرا ساعدوا النقطة هاي داود وريا أدي بدو ما ستاي كم من نقشة channel كنا كلنا هاي أدي بدو ما ستاي هذا نصيده كلا إن ليل بالليل ورنتي أرنب بدن صوبان دقي إن حقيقة أنا كهذلي رنتي مركي لقو مرتقى Somali Galamud Award oo runtii lagu qabtay Kenya oo runtii fanaaniin badan lagu marti qaaday sida Lil Balil Zuldan Serar yaha iyo qaar kale badan marka bal hada in yar dhugano hadaladii halka ka soo jeediyay Lil Balil haddii aan ka sii gudbo laba habeen ka hor sidaan wada ognahay waxa dhacday xafladii Somali Galmudug Award marka meesha aan tagay runtii aniga ma aanan maleeynin in la dhihi doono waxaan lagu siinaa ama waxaan badhici doono ma isdhehin dad hadday tahay magac iyo hadday tahay sharaf iyo magac weyn waa la isku qiraa adduunka wax walba ayaa meesha joogeen laakiinse taageerahayga dartood codka ay codeeyeen dartiis sidii codka igu shubeen darteed ayaan waxaan ku helay Song of the Year oo noqotay waakina runta daa idin sheego horta dhan kale hadii loo fiirsho way u qalmatay Song of the Year in la siiyo sababtoo waxay noqotay heesta ugu horeysay oo eray af Soomaali ku jira ee Afrika 3 beri number 1 heesatay intaasna waan ku helnay anagoo sharaftaas markii hore inoo soo hoysay sharafta dambe waxay ahayd haddana in Somali Galmudug Award aan guuleysano Song of the Year adiga dartiina ku dhacday midda kale oo aan rabo inaan idin sheegano waxa waaye aniga oo kaliya koobkaas ma aanan qaadin koobkan waa koob u imaaday dhalinyarta Soomaaliyeed adduunka meel walba ay ka joogaan waxa idin leeyahay koobkan adinka iskale aniga qolof asoo iyo agyaala laakiin adinka iskale maanta wixii ka dambeeyay dil lagu dhaho maxaa qaadeen waxa ku dhahdaa kere kadibna ay qacarnaa runta already wuxuu mahad celinayay oo lahaa wax kasta oo helay ama heer kasta oo gaaray idinka ay gaarsiin بينما قف كستا ميل كستا وقاربا waxa gaarsiya waa dadkiisa runtii marka waxa uu leeyahay ma aha anu kuma faanayo koobka idinka ku faanay laakiin anu idinka idinku faanay marka aad buu maasay si qurux badan buu hadlay si wanaagsan buu hadlay laakiin waxa isweydiin mudaniyo maxaa wiil reer waqooyi ama reer Somaliland loogu samartay qaadi waaya oo wax loogu doosiin waaya maadaaba ay Hargeysa tahay hooyigii fanka Soomaaliyeed xitaa cid kasta afka Soomaalida ku hadasha haday tahay Hargeysa haday tahay Malay Somaliland haday tahay Soomaaliya haday tahay Djibouti dhamaan meel kasta everything meel kasta hadeen eegno ay Soomaali joogto hooyiga fanku waa Hargeysa marka hooyigii fanka in mar qora oo qofka guuleysan waayo maxay dalata taa qudhigeeda wali alaana waxa jira in Soomaalidu ay xaqirayso wali kala qaybsanaan badan baa jirta in kasta dadku ay kala qaybsameen oo mid walba mabda ay aragti gaar ah aamisay haddana waxaad moodaa wax kasta oo in doonayno heer ku gaarno inaynu xadidno oo dadka qaar u xadidno marka waxaan jeclaan lahaa dhalinyaro abaabushay si qurux badan bay abaabuleen oo ku bogaadinaya oo ugu mahad celinaya sida wanaagsan ay iskooda isku abaabuleen ay dadka u gudoonsinayaan qof kasta ay u dhiiri gelinayaan hadduu fanaan yahay hadduu stellar yahay iyo haddii uu waxaan ku yiri uu yahayba mushisha marka waxaan oran lahaa anigu hadal dhamaan ku soo gabagabeynaya halkan hooyiga fanka waxa jooga mushishanna qaaliya waxa jira fanaanin qaaliya waxa jira awaanin qaaliya waxa jira erayaan caadi ah oo qurux badan oo halkan ka jira waxa halkan ka jira koox badan oo caan ka ah Hargeysa marka sababtayga laftigooda loogu marti qaadi waayay ama hal fanaan loogu marti qaadi waayay warintii waa mid is weydiin mudan taasna qof kasta ba aragtiisa fikirkiisa sababta loogu marti qaadi waay xaq hoose nugula wadaagi doonta ma ogaan ba looga taga oo waxa aaminsantiin ogaan looga tagay mise waxa jirta oo aaminsantiin in aanu jirin qof mudan kara fanaanka ugu qaalisanaa ama fanaanka ugu codka macaana ama fanaanka heesti ugu qaalisanaa ama eriyada ugu qaalisanaa aan joogin qof u qalma Hargeysa ama gobolada waqooyiba haday tahay Somaliland yaday tahay Puntland marka anigu taas idinkan weydiin doonaa waxaan idin leeyahay aad iyo badu maasantiin su'aashaasina kale waa su'aal u baahan inaan is weydiino
waa su-aal u baahan inaan isxasuusino waa su-aal mudan in laga jawaabo aragtidiina iyo jawaabtiina iyo fikirkiinana xaggoose nagula wadaaga idinkoo uga fikiraya si qurux badan idinkoon cid ku duraynin ama cid ku duqaynaynin ama cid ku cadaadinayn dad wada dhashay bay nahay dad walaalaa bay nahay waxbaynu wanaajinaynaa waxna way naga qaldamayaan wixii naga qaldamayna inaan wanaajino inagana laga sugaya ama adaa lagaa sugaya inaad wanaajiso haddaan anigu wax qaldana adaa i wanaajinaya ama wax i toosinaya haddii aad adigu qaldantana aniga ku toosinaya oo runtii ku wanaajinaya markaad adigu i wanaajisaan ku wanaajinaya markaad idinku i wanaajisaan banaana idi wanaajinaya wixii qaldan way jiraan wax qaldani way jiraan marka waxaa qaldan inaynu ka hadalnaa oo mid loo baahan yahay markaa fikirkiina iyo aragtidiina waa nala wadaagtaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin fadlan waxaan idiga codsanaya channelka dadka cusubtiin waa Fansoor Media subscribe saar kambaleel kana furo saad mar kasta u noqoto daawadaha ugu horey aad iyo aad baa u mahadsantahay waxa maalin dhaweed aan maqlayo kale in la ilaha new channel benedida channelada fara badana halkan ma joogto xagga ma joogta say dadkaygu u badayeen intaasoo kun oo qof ay daawadaan bay asxaabteeduna u badan tahay ma sha Allah la idaayo halkan waxaa la Fansoor Media waxa iskala saaxiibkay Cabdirasaaq oo runtii ah cameraman marka qaarna YouTube marka qaarna director dhinac walba way imika dadka sanaysa kamarada duubay isaga ka gudoomiya marka wala saaxiibkay aadna waan ugu faanaa markastana halkan wad igala socon kartaan xaggan wad igala socon kartaan meel kasto oo dadan soo galnay joogaan waan taaganay baan idin leeyahay nabadey